waxa ugu dambeeya ee qofku ka fikiro waa geerida. Xigmaduna waa inuu suuraysto nolol aan dhimasho lahayn. haddii aadmigu ogaado xadgudubka maalmaha waxaa la fududaada geerida. haddiise uu ogaado xadgudubka ummadda waxaa la fududaata nolosha. soo dhawaada saaxiibayaal, waa ninkii Jabarti Yaxya ahaa oo idin leh kulanti wacan wanaagsan. ku soo dhawaada barnaamijka dhiirigelinta iyo baraaruga dhalinyarada. aadmigu waa ku miskiin nolosha, waayo si kastoo u noolaado maalin buu ka tegi doonaa. noloshu waxa ay ka kooban tahay laba qaybood oo kala ah qurux iyo xaq. waxaan ku noolnahay adduunyo la yaab leh oo wax kasta ka suuroomaan. noloshu waa waddo aanad dib ugu soo laabanayn, marka hawl kaste waa inaad u qabataa sida ugu wanaagsan. aasaaska isku dhiibidda nolosha waa mid ahmiyad gaar ah u leh, waana inaad u diyaargarowdaa inaad ka guurayso nolosha. haddii aad jeceshahay nolosha, ha dayicin wakhtigaaga, waayo wakhtiga ayaa laga sameeyaa nolosha. sida aad u noolaato u oggolow in ay dadka kalena u noolaadaan. qof kasta nolosha waxa uu ka tegayaa asaga oo moodaya saacad inuu joogay. noloshu way gaaban tahay, laakiin dhibaatooyinka dunida ayaa dheereeya. qofku waa inuu noloshiisa ka dhigaa riyo, kadibna riyadaas u beddelaa mid run ah. noloshu uma qalmayso inay imtixaan noqoto haddii aynaan u istaagin dood iyo ka wada hadal. anigu waxa aan jeclahay ubax, isaguna waxa uu ku dhex yaal qodxo. noloshuna waa sidaas oo kale. noloshu waxa ay leedahay laba xujadood, midna waa rajo, midna waa geeri. tan hore waa joogiddeeda, tan dambena waa ka tegisteeda. noloshu waa halgan soconaya oo looga soo horjeedo quusta iyo geerida. qofka u istaaga badbaadinta nolosha waa kii waaya noloshiisa. nolosha aadmigu waa dagaal aan lahayn xabad joojin. nafqabe waa wax maqabe. muhiimadda noloshu waa sida aad u isticmaasho ee ma aha dherarkeeda. waxa ugu dambeeya ee qofku ka fikiro waa geerida. xigmaduna waa inuu suuraysto nolol aan dhimasho lahayn. dadku nolosha waxa ay ka kasbadaan sharaf ayaga oo ka baqaya geerida. dadka aan garanayn qiimaha nolosha uma qalmaan in ay sii noolaadaan. noloshu maaha mid laga dhargo. noloshu waa laba qaybood. qaybta hore waxa aynu dhammaysannaa innaka oo u xiisa qabnaa. qaybta labaadna waxaan dhammaysannaa innaka oo aan ka shallaysan qaybtii hore. wax u cun inaad noolaato, laakiin ha u noolaanin inaad wax cunto. hadafka noloshu waa laba: helidda wax aad doonaysid, kadib ku raaxaysi waxa aad heshay. dadkuse qaybta dambe wax yar ayaa ku guulaysta. noloshu waa sida luuqad shisheeye oo qof kastaa wuu qaldayaa sida loogu dhawaaqo. looma abuurin aadmiga inuu fahmo nolosha, laakiin waxaa loo abuuray inuu noolaado. noloshu waa riyo ku dhammaato geeri. haddii aadmigu ogaado xadgudubka maalmaha waxaa la fududaada geerida. haddiise uu ogaado xadgudubka ummadda waxaa la fududaata nolosha. waa in aan barannaa nolosha si aan adkaysi ugu yeelanno. tiir ka mid ah tiirasha nolosha waa jacayl. qofkii aan jeclaanana ma noolaanayo. kasabka iyo macaanka nolosha kuma helaysid farxad iyo xasillooni. dad badan ayaa gala safarka nolosha ayagoo aan haysan sahay ay ku meel maraan. noloshu waa waraabe, waxa ayna leedahay dhimashada wanka. nolosha aan faa'iidada lahayn geerida ayaa ka soo hormarta. noloshu waa sida xaflad weyn oo kale, oo dadka qaar ayaa iyaga oo soconaya imaanaya, halka qaar kalena ay ka sii tegayaan. ilbiriqsi kaste oo nolosha ka mid ah waa kayd aan soo laabanayn. dardaaranka meydku waa muraayadda noloshiisa. sawirku waa cimri dheer yahay, noloshuna waa cimri gaaban tahay. nolosha dheer waxa ay leedahay murugo dheer. nolosha ninku waa maalin jiilaal iyo jid jiilaal. maalin kasta oo nolosha ka mid ah waa bog ka mid a taariikhda. qofka wax badan noolaada wax badan ayuu arkaa. si taxaddar leh u wad nolosha, waayo ma leh dayactir. geeridu maaha joogsi ee waa hakadka nolosha. dadka geerida ka baqa ayaa nolosha ka baqa. ma ogaan kartid dherarka noloshaada, laakiin waxaad ogaan kartaa ballaceeda.
qotankeeda iyo joogsigeeda. Noloshu waxa ay noo ogoshahay in aan raadinno waxa aan doonayno, laakiin waxa ay na siisaa waxa aan u qalanno. Noloshu waa bangi oo kale, kama qaadan kartid wax aanad dhiganin. Noloshu waa halgan ah inaad miisaankaaga dhinto, kartidaadana kor u qaadid. Noloshu waa buug furan, yaynan ka xiisa dhicin saaxiibadaadu inay akhriyaan. Sallaanka noloshu waa wax murgucasho badan, mana rumaysanaysid ilaa aad ka fakato. Noloshu waa sii adkaataa mar kastoo aad isdhahdid fududee. Nolosha wanaagsan waa 3 waxyaabood oo la isku daray oo ah barasho, boholyow iyo dakhli. Haddii qofku helo shaqo u qalanta iyo saaxiib u qalma, waxa uu samayn karaa nolol u qalanta. Noloshu way fududahay, laakiin innaka ayaa samayna xaalad ay ku adkaato. Noloshu way ku fid dhowdahay ee ku xafid duco. Cabirka runta ah ee noloshu maaha cimriga uu qofku jiro, ee waa samafalka. Dad badan ayaa wax kasta badbaadiyey noloshooda mooye. Qofka wejigiisa dila xaraf ugama bilowna qiimaha nolosha. mahadsanidin akhyaarta qaaliga ah. La soco barnaamijyada xiga ee taxanaha haddii ay tahay kuwa dhiirigelinta iyo barnaamijyada kaleba. iyo weliba ha hilmaamin taxanaha buugga Fatuuxul Alxabash oo channelkan Daymacad Media aad si joogto ah ula socotaan. waa anigoo Jabarti Yaxya oo idin leh nooli kulante.